مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. kulanti wacan kusoo dhowaada silsilad cusub oo aan kaga sheekeyn doono siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam oo runtii duruus badan aan ka faa'iidi doono. daraasada siirada runtii aad bay waxay u leedahay muhiimad gaara. marka ugu horeyso nebiga calayhi salaatu wasalaam waa qudwada qof kasta oo muslima. cidda la rabo qof kasta oo muslima inuu ku daysado oo uu raaco wadadiisa waa nebiga calayhi salaatu wasalaam. si uu marka qofku nebiga ugu daysado oo wadadiisa u raaco wuxuu u baahan yahay inuu siiradiisii fahmo oo noloshiisii maaragtay wax ka barto. sidoo kale siirada waxay muhiim u tahay fahmidda qur-aanka. qeybo badan oo qur-aanka ka mid ah, aayado badan oo qur-aanka ka mid ah, si qoto dheer hadduu rabo qofka inuu u fahmo waxaa muhiim ah inuu siiradii wax ka garanayo. oo qur-aankii nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu kusoo deganayay 23 sano oo markaasi maxay ahayd noloshii iyo maraaxishii dacwada ee nabiga calayhi salaatu wasalaam dacwadiisa ay maraysay ayuu qur-aanku hagayey. maaragtay bulshadii muslimka ahayd ayuu dhisayey oo maaragtay wuxuuna hagayey loolankii bulshada yar kala dhexeeyey maaragtay jaahiliyadii ku hareereysneed ayuu qur-aanku hagayey. marka aayadaha qur-aanka maaragtay maraaxishaas kala duwan ayay kusoo degayeen. marka si uu qofku si qoto dheer ugu fahmo wuxuu aad ugu baahan yahay inuu maraaxishaasi ayadana wax ka daraaseeyo. waxay kaloo siirada barashadeeda aad noogu muujinaysaa isbeddelkii ku dhacay bulshadii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam u yimid, mugdigii ay ku jireen, sidii ay u ahaayeen ummad dayacan oo lunsan, haddana ay isugu bedeleen maaragtay markii nuurkii Allah subxaanahu watacaala xaggiisa ugu yimid ay qaateen, ay isugu bedeleen dadkii maaragtay hogaamiyaashii caalamka, ay isugu bedeleen ummad kale ay noqdeen. maaragtay isbeddelka ku dhacay qaabka u yimid, maraaxisha uu maray, runtii muhiimad weyn ayay leedahay in la fahmo oo la daraaseeyo. iyo guud ahaanba barashada taariikhda runtii faa'iidooyin badan iyo cibrooyin badan ayaa ku jira oo qofku markuu daraaseeyo ummadihii naga horeeyey, kuwii halaagsamay, waxay ay ku halaagsameen, maxay ku mutaysteen halaagaasi, marka wuxuu ku dadaalay inuu ka fogaado maaragtay wixii ummadahaasi hoojiyey oo dhibaatada u horseeday. sidoo kale kuwa ilaahay subxaanahu watacaala uu sharfay uu karaameeyey maaragtay sharaftaasi iyo karaamadaasi waxa ay ku mutaysteen si uu markaa u laazimo ugu dadaalo. inta aanan hore u galin siiradii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ka sheekeynta noloshiisa, waxaan horraac ugu samayn doonaa qeybihii ka horeeyey inaan soo dulmarno si aan fikrad fiican uga qaadano xaaladda sida ay ahayd inta aan nabiga calayhi salaatu wasalaam la soo dirin. aan ku bilaawno su-aal aad u qiimo badan. marka hore, ilaahay subxaanahu watacaala muxuu noo abuuray, ama maxaa bani aadamka loo abuuray? waxaa bani aadamka loo abuuray in Allah subxaanahu watacaala keligiis ay caabudaan. ilaahay wuxuu leeyahay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun. waxa keliya loo abuuray waa ilaahay subxaanahu watacaala in ay caabudaan. cibaado markii la sheego waxaa maskaxdeena usoo degdegaya cibaadaadka waaweyn
sida salaada, soonka, xajka, zakada, qur-aanka oo la akhriyo iyo cibaadaadka kale ee la midka ah. Runtii waa cibaadaad aad u waaweyn, laakiin cibaadaadka intaa kaliya kuma koobna, oo noloshii oo dhan ayaa cibaado noqonaysa. Waxaana lagu soo koobi karaa in qofku uu ka dambeeyo amarka Allah subxaanahu wa tacaala oo uu noloshiisa ka dhigo sida uu Ilaahay ogol yahay. Markaasi noloshiisa oo dhan waxay noqonaysaa cibaado, wuxuuna noqonayaa qof wixii loo abuuray u nool. Cibaado ayaa loo abuuray, wuxuuna ku jiraa cibaado. Markaasi xataa acmaal qofka noloshiisa aysan ka maarmin ayaa waxay noqonayaan kuwa uu ajar ka helo haddii uu niyadiisa wanaajiyo. Iskuulka aad aadaysay ayaa ajar lagaa siinayaa. Imtixaanka aad diyaarinaysid ajar baad ka helaysaa. Beer haddaad beeraysid ama aad waraabinaysid ajar baad ka helaysaa. Waalidkaaga ood saacidaysid guriga aad ka shaqaynaysid ajar baad ka helaysaa. Iyo acmaal kaloo fara badan oo noloshii aysan ka maarmin. Kulligood waxay kuu noqonayaan wax aakhiro ku anfaco. Marka haddii loo baahan yahay in loo noolaado sida uu Ilaahay raalli ka yahay oo amarkiisa laga dambeeyo, waxay bani'aadamku u baahnaanayaan cid ku hagta wadada Allah subxaanahu wa tacaala uu raalliga ka yahay. Sidaas darteed Ilaahay subxaanahu wa tacaala bani'aadamku wuxuu u soo diray rusul, kuwaas oo shaqadoodu ay tahay in ay dadka soo gaarsiiyaan hanuunka Allah subxaanahu wa tacaala xaggiisa ka imaanaya, dadkana ay u sharxaan oo ay fahansiiyaan. Midda kalena ay tusaale, qudwo lagu daysan karo ay u noqdaan. Bani'aadamka wuxuu ku bilowday Nabi Aadam calayhi salaam oo la yiraahdo Abul Bashar, basharka oo dhan aabahood. Magaca markaad fiiriso waa bani Aadam oo ah Aadam ilmihiisii. Nabi Aadam calayhi salaatu wasalaam ay dadku dhan ka soo farcameen. Nabi Aadamna Ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu dhulka u soo dejiyey uu la hadlay, wuxuu ku yidhi: qaala ahbitaa minhaa jamiican فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. wuxuu u sheegay inuu usoo dejinayo hanuunkaasna laga rabo asaga iyo ilmihiisaba in ay raacaan oo ay markaas ku dhaqmaan. Qofkii raaca adduunka wareer iyo dhumitaan ma la kulmaayo, aakhirana Ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa nicmo iyo barwaaqo ayuu ku helayaa. Qofkii laakiin raaci waaya hanuunkaas, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u ballan qaaday adduunkana inuu ciriiri ku noolaanayo, aakhirana cadaab inuu u dambeeyo ayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadaha noogu sheegay. Nabi Aadam sidaa ayuu ku raacay hanuunkii Ilaahay agtiisa uga yimid. Ilmihiisana asaga ayay kaga daysadeen oo wadadii aabahood ayay hayeen. Jiilba jiil ayaa ka dambeeyey oo ilmo ayay sii dhaleen. Nabi Aadam ilmihiisa iyo ilmaha ay sii dhaleen iyo kuwa ay sii dhaleenba waxay ku taagnaayeen wadadii aabahood oo waxay raaceen wixii uu Nabi Aadam hanuunah ula yimid. Laakiin waqtiga markuu sii dheeraaday waxaa bilaabatay in dadkii noloshooda ay soo galaan khaladaad, in dembiyada qaar la sameeyo oo la fududaysto ayaa bilaabatay. Taas oo aanan ahayn dadkii oo dhan, dhanka kalena aan gaarsiisaneyn heer shirki ah ama Ilaahay in cid kale lala wadaajiyo aan gaarsiisaneyn ayay ahayd. Dadkii wanaagsanaa markastaba waxay ka celin jireen kuwa xumaanta sameynaya, xumaanta ayay ka celin jireen. Laakiin marka ka dambeysa dadka xun ayaa badanayay, dadka wanaagsanna way yaraanayeen, ilaa markii dambe dadkii wanaagsanaa ay dhammaadeen oo dadkii xumaa ay isku soo hareen. Shaydaanka ayaa wuxuu u qurxiyey qoladii xumaanta sameynaysay si ay u xasuustaan dadkii wanaagsanaa ee markaa dhintay haddana aan la joogin, in ay u dhigaan meelahii ay fadhiisan jireen dhagxaan ay ku gartaan ama ay ku xasuustaan inay u sameeyaan. Haddana muddo kadib wuxuu shaydaankii u qurxiyey in ay ka dhigtaan qoladaasi qole ay Ilaahay ugu dhowaanayaan oo ayaga ay baryaan oo uu yiraahdo Ilaahay bay idiin dhoweynayaan. Meeshaas ayaana waxaa ka bilowday shirki, in Ilaahay subxaanahu wa tacaala cid kale lala wadaajiyo oo wixii asaga uu gaarka u lahaa qolo kale wax laga siiyo. Arrintaas ayaa bilaabatay. Intaa kaliya kuma aynan ekaysanine waxay noqdeen dadkii qolo iska raacda madaxdooda, qolo iska raacday noqdeen
oo waxay yidhaahdaan sameeya. hadday dhahaan sanamkan hala caabudo ay iska caabudaan, haddii waxaan xumaanta ah la sameeya ay yidhaahdaan ay ku raacaan ayay noqdeen. waxaa ilaahi subxaana watacaala uu soo diray nebi nuux. nebi nuux waqti dheer ayuu waaninayey oo ilaahay subxaana watacaala inay keligii caabudaan ugu yeerayey. uu lahaa ucbudullaaha maa lakum min ilaahin hayruh. way ka dhaga adeegeen, warkiisina way diideen inay maqlaan, marka laga reebo qaar yar oo nebi nuux raacay. laakiin intii badnayd way diideen, waxayna raaceen madaxdooda warkooda oo markaa ugu yeerayey inay baadilka iyo xumaanta ay ku sii jiraan. nebi nuux oo arrintaa ka faaloonayo ilaahay la hadlay wuxuu yidhi, qaala nuuxu rabbi innahum casawnii waattabacuu man lam yazidhu maaluhu wawaladuhu ilaa khasaara wamakaruu makran kubaara waqaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaguutha wayacuuqa wanasra. nimankii madaxda ahaa warkooda ayay raaceen, nebi nuuxna way ku caasiyeen. nimankaasaana dhahayay oo ugu yeerayay aalihadan haka tegina oo maaragtay maxay ahayd baadilkani xumaantani kusii jira. magacyadaana waa magacyada aalihadii ay samaysteen oo kasoo jeeda niman saalixiin ah oo markaas ay meeshii ay maaragtay inay ku daysaan la rabay ay ka dhigteen kuwo ay baryayaan oo ay leeyihin ilaaha ugu dhowaanaynaa. 950 sano oo nebi nuux dacwadii waday kadib, markii ay intoodii badnayd diideen, ilaahay subxaana watacaala nebi nuux iyo intii raacday wuu badbaadiyey. dadkii maaragtay xumaanta ku adkaystayna ilaahay subxaana watacaala wuu haligay oo maaragtay biyo ayaa lagu qarqiyey. kadib dadkii soo haray mu'miniinta ahaa iimaankooda iyo diintooday sii haysteen, ayaguna way tarmeen. jiil kastaba jiil kalaha kusii xigsaday. wanaagii iyo dacwadii uu nebi nuux kaga tegey ayay haysteen ilaa markii dambedan ayagana khaladaad noloshooda uu ku bilowday. haddana dib ay ugu noqdeen shirkigii, ay dib ugu noqdeen. markaas haddana ilaahay subxaana watacaala maaragtay rasuul usoo diray. rusushuna markaa way isdaba raaceen. mar kastaba rasuul kale ayaa imaanayay, markastoo ay dadka ka leexdaan wadadii saxnayd oo ay maaragtay khaladaad maaragtay noloshooda ay soo galaan oo shirki iyo wax lamida ay dib ugu noqdaan. rasuul baa la soo diri jiray oo dadka saxaya oo wadadii toosan kusoo celinaya. saasay nebiyadii ilaahay subxaana watacaala ay rusushiisa ay isugu xigsadeen: huud, saalex, ibraahim maaragtay iyo ambiyadii kale ee faraha badnaa. nebi ibraahim calayhi salaam haddaan soo qaadano, wiilashiisa waxaa ka mid ahaa nebi isxaaq calayhi salaam. nebi isxaaqna wuxuu dhalay nebi yacquub calayhi salaam. nebi yacquub wuxuu lahaa naanees israa'iil baa la dhihi jiray. waxaa asagii ka faracmay ummadda loo yaqaano reer bani israa'iil. reer bani israa'iil waxay ahaayeen dad ilaahay subxaana watacaala aada ugu nicmeeyey waqti dheer. ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka soo dhex saaray nebiye fara badan. noloshooda inta badan nebi kama aysan marnaanin, oo markuu nebi dhintaba nebi kale ayaa loo soo saari jiray. nicmo aada u weyn ayay haysteen, laakiin ma aynan ahayn badankood kuwa nicmadaas ka faa'iidaysta. nebiyadoodu waa ay dhibi jireen, aad bay u rafaadin jireen, bal qaar ka mida way bedeleenba. nebiyadii laga soo dhex saaray waxaa ka mid ah nebi muuse, nebi haaruun, nebi daawuud, nebi sulaymaan, nebi zakariye, nebi yaxye iyo ambiye kale oo fara badan calayhim assalaam. dhanka kale nebi ibraahim wiilashiisa waxaa ka mid ahaa nebi ismaaciil. nebi ismaaciil iyo nebi isxaaq waxaa weynaa nebi ismaaciil, laakiin siyaaqa qisada darteed ayaan usoo hormarinay nebi isxaaq. labadoodana waxaa kala dhalay laba hooyo oo kala duwan. nebi isxaaq hooyadiis waxaa la oran jiray saara, nebi ismaaciilna hooyadiis waxaa la oran jiray haajar. nebi ismaaciil isagoo aada u yar oo dhabta lagu sido ayuu nebi ibraahim soo waday isaga iyo hooyadiis, wuxuuna keenay magaalada maka. maka markaas magaalo ma aynan ahayn, oo waxay ahayd meel bannaan oo aan biyana lahayn geedna lahayn ayay ahayd. meeshii markuu keenay ayuu kaga tegey. markii uu dhaqaaqay ayay soo daba raacday haajar oo ay weydiisay, ma halkan baad nooga tegaysaa? ma uunan u jawaabin. mar labaad ayay weydiisay, mana uusan u jawaabin. markii labaad waxay dareentay in ay xikmad ku jirto. waxay tiri, ilaahay miyaa ku amray inaad halkan nooga tagto? wuxuu yidhi haa. markaas bay waxay tiri, haddii saa ay tahay ilaahayna ma dayacayo. waxay ahayd qof ilaahay subxaana watacaala aada u rumaysan, qalbigeedana uu ku xiran yahay, yaqiinna ku qabta rabbigeeda. waqti dheerba kama soo wareeganin, ilaahay subxaana watacaala wuxuu dhulka uga soo saaray biyo. biyahaas oo markii dambe la magac baxay
maau zamzam ama bi'ru zamzam, waana biyaha dadka markii ay cimraystaan ama xajiyaan ama ay booqdaan beytullaahi alxaraam ay soo cabaan, guryahoodii iyo wadamadoodana ay u qaataan inta ay qaadan karaan. intaa kaliya ma ahayne, mar haddii ay biyo heleen oo ay geedna beeran karaan oo cunto iyo cabitaanba ay heli karaan, waxay u baahan yihiin wehel. waxaa ilaahay usoo sakhiray qoom markaa guurayay oo raadinayay meel ay degaan, oo dhulkaana hadda ka hormari jiray oo ku ogaa dhul biyo leh inuusan ahayn, oo markaa aan barajo ka lahayn, ayaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu tusay in dhulkii uu biyo leeyahay. markaas ayay kusoo leexdeen oo ay yimaadeen, waxay arkeen maamadan wiilka yar haysata ee markaa biyahana ag fadhisa. markaas way dareemeen in ilaahay subxaana watacaala uu ku karaameeyey biyahan. markaas ma aynan ka xoogin biyihii, oo waxay sameeyeen inay si wanaagsan ula hadlaan oo ay yidhaahdaan, ka waran hadda agtaada degno oo biyahane aan kharashka ugu siino, ka waran ayay ku yidhaahdeen. ayadina way ka aqbashay, sidii ayay ula degeen oo ay meeshaasna ku heshay biyo iyo cunto iyo wehel ayay ku heshay oo ilaahay raacayadiisii ah. markii uu xoogaa soo koray nabi Ismaaciil, uu soo gaaray da'da ay waalidku aad ilmahooda u jecel yihiin, nabi Ibraahim wuxuu ku riyooday asagoo gowracaya wiilkiisii nabi Ismaaciil ah. riyada ambiyadana waa waxyi. sidaas darteed meeshaas nabi Ibraahim wuxuu ka fahmay in ilaahay subxaana watacaala ku amray in uu wiilkiisa gowraco. wuu soo baxay, wiilkiisi ayuu u yimid, wuxuuna ku yidhi, aabbo waxaan ku riyooday anigoo adigii ku gowracaya. isagana wuxuu ahaa inkastoo uu yar yahay, wiil aad loo tarbiyeeyey oo lagu tarbiyeeyey ilaahay subxaana watacaala amarkiisa inuu qaato, qadarkiisa inuu aqbalo. wiil lagu tarbiyeeyey ayuu ahaa. markii aabihii uu ku yidhi waxaan ku riyooday anigoo ku gowracayo, wuxuu yidhi, aabbo wixii ilaahay ku amray sameey ayuu yidhi. aabihiina wiilka ayuu soo qabtay, dhulka ayuu dhigay, wuxuuna u diyaar garoobay inuu gowraco. markii ay sheekada intaa marayso, ayaa waxaa ilaahay soo diray malakul jibriil oo wada wan laga keenay jannada. markaas ayaa la amray nabi Ibraahim in uu joojiyo, uusan gowracin Ismaaciil, laakiin uu gowraco wankan loo keenay. wankii ayuu sidii ku gowracay nabi Ismaaciilna ilaahay subxaana watacaala meeshii ayuu ku badbaadiyey. hadafkuna wuxuu ahaa imtixaan labadooda la imtixaamayey, wuxuuna ahaa imtixaan aad u adag, laakiin way ku guulaysteen. nabi Ibraahim calayhi salaam had iyo jeer markii waqti uu soo wareegaba wuu soo booqan jiray wiilkiisa oo Maka ayuu ugu imaan jiray. waqtigaas ka mid ah, nabi Ibraahim iyo nabi Ismaaciil waxay wada dhiseen Kacbada. nabi Ismaaciil markaa Maka ayuu deganaa, meeshaas ayuuna ka guursaday, ilmana ku dhalay. ilmihiisina ay ilmo kale kusii dhaleen oo ay bateen, ilaa carabta qaar badan oo ka mid a waxa ay ka soo jeedaan asal ahaan nabi Ismaaciil calayhi salaam. muwaarikhiinta ama dadka taariikhda ka sheekeeya waxay u qeybiyaan carabta laba qeybood, qeyb la yidhaahdo cadnaaniyiin iyo qeyb la yidhaahdo qaxtaaniyiin. cadnaaniyiintu waa kuwa ka soo jeeda nabi Ismaaciil calayhi salaam. waxaa loogu magac daray nin la yidhaahdo Cadnaan oo ka mid ah axfaaddii dambe ee nabi Ismaaciil, oo asaga iyo nabi Ismaaciil dhowr jiil baa u dhexeeya, laakiin asaga ayaa ilmihiisu ay aad u farabateen oo ay qabaa'il badan ka farcameen. sidaas darteed ayaa asaga loogu magac daray. laakiin cadnaaniyiintu waxay ka soo jeedaan nabi Ismaaciil calayhi salaam. dhanka kale, qaxtaaniyiinta ayagu waxay ka soo jeedaan Yemen. si aan u fahanno, haddaan mithaal soo qaadanno, qabiilka la yidhaahdo Quraysh ee deganaa Maka oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka dhashay, iyo muhaajiriinta intooda badan waxay ahaayeen cadnaaniyiin. baynamaa reer Yathrib oo laba qabiil ahaa, Aws iyo Khasraj, ansaartana badankooda ay ka soo jeedeen, ayagu waxay ahaayeen qaxtaaniyiin. halka ayaan ku ekeysanaynaa xalaqada koowaad. intaan xalaqo kale kaga kulmayno, waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.